ويرجمه الشقاء وحي أبدان تهيدين عيدنك واتن مانتي بنتلان باهدا أبدان أوقبته وحان لي هاي قبرد عيدا قبرد شقاء لنا عهوقا من تعيدا ماذا ملتريقا يحوقا أمنيقا بنتلان مددان أفري 8 سنة وحان صور نقضي أغاسميه قود عيدا ماذا بنتلان لو يقان بنتلان سيكوريتي فورس وحان كلو أهالة تليها سرع لنا أمنيقا دولة بنتلان وحان كفر أحسن هاي عيدا ماذا أمنيقا أن سوه قاميني إن لغو تريو إن يهين عيدا ماذا كوة لغو توابرك في عن وحر فد سرية وقنا أخلاق ونكسن دمان عيدا ماذا صوماليا تاني اسكما إيمان أي وحان واركا إن يكتمد وقامين كونكسن سيدا الله سعطان بأمنك بوتلان وحسوه جاي حال قطرة وعن لدى يسان كريم ونباهان إن وحال اسكوه ديو وحنا لغا قبطو وعن هل كان سلام شرفات ودر يا عيدا ماذا إن قيسياشا كسوغان جيدها دقالك سيدا بورها علمدو يعال مسكات يتكرق دولة دي مسي جري كرتو مر هديسن أود أولهين إنay isdifaacdo amnigeeda sugato xadkeeda ilaashato xukuumadeedu waxay ballan qaadaysaa inay ka shaqeyso dhisidda tababarka qalabaynta dib u habeynta ciidan lagu kalsoonaan karo oo guta waajibaadka saaran sida ugu habboon waxaan dhisi doonaa anshaxa iyo aqoonta dagaalka ee ciidanka waxayna noqon doonaan kuwa aaminsan ciidooda waxaan ballan qaadayaa ciidamada Puntland inay helaan daryeel dhameystiran munaanteeda koowaad ee waxqabad waargixisada inaan ka ciribtiro Puntland Soomaaliyeedkana ka saaro deegaanada Puntland oo ay xoog ku haystaan marnaba ma ogolaan doono mana aqbali doono Puntland kala maqan Puntland tii weyneed waan soo celin doonaa insha Allah soo celinta dhulka maqan kuma xirna rabitaankayga ee waajib dastuuri ah oo isaaran la dagaalanka argagixisada waxay u baahan tahay in wax laga bedelo istiraatiijiyadii hore ee u qaabeysneed dagaalka foolka fool ah oo kaliya gulufka dagaal waa inuu hareer socdaa dagaal dhinaca fikirka ah waxaan awoodda saarayaa horumarinta ciidan sirdoon ah oo u diida cadowga inuu ku dhuumaalaysto gudaha shacabkeena mana heli doonaan gabaad qariya dhaqaalaha Puntland maanta waa mid burbur iyo hoos u dhac hareeyay sixir barri baacad leh saboolnimo baan shaqo la'aan musuqmaasuq baahsan oo curyaamiyay nolosha shacabka dhaqaalaha waa tiirka udubdhaxaadka u ah dawladda furana u ah adeega dawladnimo bixiso si dhaqaalaha waddanka loo kubciyo waxaan ka shaqeynayaa ka faa'iideysiga kheyraadka waddanka iyo kubcinta wax soo saarka sida beeraha xoolaha iyo kheyraadka badda waxaan dhiirigelinayaa maalgashiga iyo warshadaha yaryar si loogu maarmo wax kasta oo dibadda laga keeno waxaan si dhab ah uga shaqeynayaa fariisinta sicirka sarifka lacagaha qaraadeed ma dhici doonto ganacsato ama xilhayaal xukuumadda ka mid ah inay isku soo daabacdaan lacag xukuumadeeduna hadday dhimataan hoggaankeeda waxay dagaal adag la geli doontaa wax kasta oo la xiriira musuqmaasuqa wadada aan u maraynana waxay tahay awoodsiinta iyo madax banaaneynta hay'adaha shaqada ugu xilsaaran sida xafiiska hantidhowrka guud iyo garsoorka adeega arrimaha bulshada mudan yaali marweyn xoojinta adeega arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada waa arrimaha aan doonayo inaan gaarsiiyo dhammaan deegaanada Puntland waxaan ka shaqeynayaa horumarinta waxbarashada anoo xoogga saari doona tayeenta manhajka iyo kordhinta miisaaniyadda waxbarashada ay ka hesho miisaaniyadda guud ee dawladda Puntland waxaan si gaar ah u diyaarsanaynaa qorshe waxbarasho oo loogu talagalay ardayda danyarta ah sidoo kale adeega caafimaadku waxa uu ka mid yahay adeegyada ugu muhiimsan oo ay dawladda ka shaqeyn doonto haddii aan la idmo waxaan Puntland ka hirgelin doonaa isbitaal weyn oo ka maarmi doonta bukaankeena loo qaadiyo dibadda iyo maamulada dariskana ah cadaaladda waxa ugu weyn ee lagu cabiro horumarka ummadaha waa heerka hadba ummadaasi ka joogto nidaamka cadaaladda waxa la yiraahdaa cadaaladdu waa asaaska xukunka taas macnaheedu uu yahay cadaalad la'aan xukun jiri kara ma jiro waxaan ballan qaadayaa oo ka shaqeynayaa in cadaaladdu sareyso laamaha garsoorka noqdaan kuwa lagu kalsoonaan karo loona dhameystiray wax kasta oo u fududeynaya inay gutaan waajibaadkooda sida ugu habboon maamul wanaagga tan iyo markii la aasaasay Puntland dowladda ugu weyn waxay ahayd sida maamulka uga
talaabsan lahaa hanaan maamul oo ku dhisan isla xisaabtan iyo daahfurnaan si loo gaaro yoolka waxay noqonaysaa hay'adaha dawladda kuwa iskor joogteeya waxaa laga guurayaa dhaqan siyaasadeedkii madax ka noolka ahaa waxaan ka shaqaynayaa daadejinta maamul iyo in Puntland aan hirgeliyo nidaam doorashada ee loo yaqaan qof iyo cod si looga gudbo hanaanka doorasho ee qabiilka ku dhisan shaqaalaha dawladda ciidan iyo rayidba ma dhici doonto in xuquuqooda la lunsado xukuumadeedu waxay ballan qaadaysaa inay bixiso mushaaraadka lagu yeeshay shaqaaluhuna waa inay gutaan waajibaadka shaqadooda dawladda federaalka mudane Marweyn dhisidda dawlad federaal ah waa qorshayaashii loo aasaasay Puntland sidaas darteed waxa iga go'an inaan hubiyo khilaafaadka soo noqnoqday ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo Puntland waxaan ka shaqaynayaa sidaan ku soo celin lahaa wada shaqayntii ka dhaxaysay dawladda federaalka iyo Puntland anoo la tashan doona xildhibaanada labada aqal ee dawladda federaalka noo matala dhalinyarada waxaa la isku waafaqsan yahay in hantida ama xoogga ugu weyn ee ummadu leedahay ay tahay dhalinyaro dhalinta Puntland ee daadooda ka yartahay 30 sano ayaa lagu qiyaasaa inay ka yihiin tirada guud ee dadka Puntland in ka badan 70% kuwaasoo la kulma caqabado siyaasadeed dhaqaale iyo mid bulsho oo ka hortaagan inay kaalin mug leh ka qaataan ka ciyaaraan guud ahaan horumarka dalka si awoodda dhalinyarada looga faa'iideeyo waxaan ballan qaadayaa inay hormuud ka noqdaan hanaanka siyaasadda ee Puntland waxaan awoodda saari doonaa sidaan shaqo abuur ugu sameyn lahaa dhalinyarada oo aan u arko dhibaatada ugu weyn oo haysata inay tahay shaqo la'aan haweenka dumarku waa laf-dhabarta bulshada iyo kuwa isbeddelka u horseeda bulshooyinkeena waa haddii loo diyaariyo jawi habboon waxaa la gaaray waqtigii ay heli lahaayeen xaqooda oo dhammaystiran waa in la joojiyaa guud ahaan xadgudbiyada ka dhanka ah dumarka iyo wax kasta oo noqon kara xuquuqid waxaan ballan qaadayaa haweenka xukuumadda aan dhisay inay uga muuqan doonaan si mug leh xildhibaanada sharafta leh muddo ayaan isha ka dhuganayay xogaalna u ahaa xaaladda Puntland ay ku sugan tahay anoo rajaynayay inuu isbeddel dhici doono nasiib darase ma dhicin maalintii ka dambeysay waa ay ka sii daraysay xaaladda